Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Khalid Yunus Usman, and you are watching Khaludi English Updates English for Beginners Lesson 2. Casharka aad maanta si toos ah ula socotay waa casharkii labaad ee English for Beginners. Xisadii hore ama English for Beginners Lesson 1 waxaynu kusoo dhiganay cashar ku saabsan the English alphabets, xuruufta alfabeetka 26 ay ahaayeen consonantyadooda, vowladooda iyo dhammaanba intaas ayaan isla soo egnayahayd. Maanta casharka yaga aynu wada dhiganaynay ama adiga la socotay wuxuu ku saabsan yahay waa cashar ciwaankiisu la baxay English fruits and vegetables, khudaarta iyo midhaha iyagoo aan la karin la cuno. Dhammaantoodna insha allah waxaan u dhigay oo aan kugu diyaariyey sidii cashirkii ka horeeyay kan English alphabetska oo wuxuu ku bilaamayaa xarafka A. Hadda waxaynu ku bilaabi doonaa midhihii u horeeyey, the first fruit oo ku bilaamaya xarafka A. Sawirkan hadda kuu muuqda waa apple tufaaxa. Sawirkan kale ee ku xiga waa avocado af soomaalina waa isla avocado un. Sawirkan saddexaad banana waa muuska la cuno. Muuska weeye. Sawirkan ku xiga ee hadda kuu soo baxay ujeeday waa beetroot ama af soomaali baytaraaf. Beetroot waxaa loo isticmaalaa saladhka ayaa lagu daraa, badana bariiska ayaa xagga kore laga soo saaraa oo midabka ayuu ka bedelaa, wuu caseeyaa. Beetroot waa baytaraafka. Fruitkan kale ee hadda inoogu xiga ama vegetablekan inoogu xiga waa carrot af soomaalina waa carrot. Cherry waa midho ka baxa wadamada dibadda oo badana lagama helo midhahan wadamada ay Soomaalidu degaan sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliyaba. Laakiin waxaa dhacda marka qaar midhaha in laga soo qaato wadamadan reer galbeedka oo dad xagga ka imanaya fasax ama u imanaya ama booqasho ay guryahooda haddii ay meel beera ay leedahay badana bangulooyinka oo kale ayay ku beertaan. Fruitkan kale ee hadda inoogu xiga waa garlic ama Soomaali waxaa loo yaqaanaa toon. Sawirkan kale hadda kuu muuqda ardayow waa grape. U fiirso sida loo akhrinayo grape waa cinabka af Soomaali. Grape waa cinabka. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqda aad u jeedid waxaa loo yaqaan af English iceberg lettuce. Tida mararka qaar reer galbeedku waxay u akhriyaan D waxayna yidhaahdeen lettuce. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqda ee aad u jeedid waa lemon liin af Soomaali waa liin dhanaan. Lemon. Mango dhammaanteenba mango waynu wada naqaan. Mango waa cambada. Sawirkan kale hadda kuu muuqdana waa melon waa xabxabka. Ku kale oo ay yidhaahdeen watermelonna wuu jiraa, ka insha allah waxaynu ku eegi doonaa xagga dambe qeybta W-ga. Melon waa xabxab, watermelonna waa isla xabxabkii un laakiin waxay isugu yar kala duwan yihiin un noocyada ay kala yihiin. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqdana waa looska. Nooc kalena uu leeyahay design kale, meel kale ayaynu ku eegi doonaa insha allah.
kan hadda kuu muuqdaana waa orange. Af Soomaali haddii aan kuugu macnayana waa liin macaan. Orange, liin macaan. Sawirkan kale aad hadda arkaysid waa P, marka la isbeel gareeyana waa P-E-A. Waa atarka af Soomaali. Atar ayuu noqonayaa. Waddooyin badan ayaa loo soo back gareeyaa. Mararka qaar bac buu ku jiraa, mararka qaar daasad baa lagu soo gelin, mararka qaar kolba si baa loo soo cabeeyaa. Laakiin P waa sida peniska aan idhaaha oo kale, oo beanska aan idhaaha oo kale. Marka wuxuu u dhigmaa atar, ereyga atarka ah. Sawirkan hadda aad arkaysid ee kuu muuqda waa kii aan haddeer soo aragnay oo kale. Mararka qaar waxay ugu yeedhaan nuts, mararka qaarna waxay ugu yeedhaan peanut. Labaduba waa isku midkii un, isku shay unbaa loogu magacaabaa, laakiin noocyadooda unbaa yar kala duwan. Peanut waa lowska. Kan hadda kuu muuqdana waxaa la yidhaah pear. Waxaad badana ka helaysaa supermarketyada, inkastoo suuqyada Soomaalida hadda uu si fiican u soo gaadhin oo aanad ka helayn suuqyada Soomaalida. Laakiin wadamada reer galbeedka iyo runtii waxaa jira fruityo badan oo aanan soo gaarin dhulka ay degaan Soomaalidu weli. Laakiin supermarketyada qaarkood waa la keenaa, waxaana loo yaqaan pear. Sawirkan kale aad hadda arkaysaan waxaa loo yaqaanaa pepper. Sida basbaaska oo kale, midmidaha ama qajida oo kale ayaa laga sameeyaa shaygan. Sawirkan kale ee hadda arkaysid waxaa loo yaqaan pineapple. Dhammaanteenba waynu wada naqaan, waa cananaaska. Af Soomaali cananaas baa loo yaqaan. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqda eed arkaysid waa pumpkin. Af Soomaali dubbe ayaan u aqaan anigu. Aduu maxaad u taqaan pumpkin? Insha Allah igu soo qor qaybta comment sectionka, xaggaasaan ka akhrin doonaa insha Allah. Pumpkin dubbe ayaan u aqaan. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqda waa strawberry. Af Soomaalina runtii strawberry unbaa loo yaqaan. Kana sida oo kale deegaanka dhulka ay Soomaalidu degaan kama baxo. Haddii uu ka baxana beero qaarkood way jiraan, laakiin waa small in number inta ka baxda. Badanaa inta loo soo dhoofiyo Somaliland oo kale ilaa iyo intaa ka shisheysaba waxay ka yimaadaan meesha noogu dhow ay ka imanayaan geeska Africa waa Ethiopia, Addis iyo nawaaxigeeda ayaa lagu beeraa. Meelahaas ayna nooga yimaadaan. In Carabaha ay nooga timaadina way jiraan. Strawberry badana waxaad ku arkaysaa supermarketyada. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqda waa sweet potato ama sweet potato. Waa baradhaha. Sweet potatona waa nuuc baradhaha, laakiin uu ka yar macaan yahay kan. Badanaa waxaa loo isticmaalaa wadanka Ethiopia oo kale xilliyada casarkii break ahaan ama cuwaaftii ayay u isticmaalaan. Aad buu u macaan yahay. Madaadis ayayna u yaqaaniin. Sweet potato waa baradhaha macaan. Sawirkan kale ee hadda kuu muuqdeed arkaysid waa tomato ama tomato, waa tamaadka. Kan kale een hadda isla eegayni waa watermelon. Haddeer wuxuu la xiriiraa kii aynu soo aragnay ee aanu melon aynu isnidhi. Watermelon waa xabxabkan wadankayaga laga helo ee Ramadaankii aynu isticmaalno badanaa xilliyada Ramadaankii inoo soo go'a. Watermelon waa xabxabka. Haddaba ardayay cashirkii inoogu saabsanaa fruits and vegetables-ka intaas ayuu inoogu egyahay. Channelka Khaludi English Updates keliya ma soo gelino ama cashiradayadu kuma saabsanaa beginnerada inta loogu talagalay.
casharo kale oo waxaad ka heli doontaa insha allah ku caawinaya haddii uu englishkaagu ka sareeyo beginner levelka uu intermediate ama advanced ba yahay. Hadda inta aad la socotase waa casharkii loogu talagalay ardayda beginnerka ah. Marka aad videogan dhamaysatid, haddii aad rabtid waad sii wadan kartaa oo video waxaad u gudbi kartaa lesson 3. haddii aad rabtana waxa aad samayn kartaa videogan inaad like inoo saarto lana share garaysid ardayda asxaabta ah, channelkana aad ka mid noqoto qoyska Khaludi English Updates oo channelkana inoo subscribe garee. Assalaamu calaykum.